madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo xulafadiisa siyaasadeed oo haatan dhaqdhaqaaq ka wada magaalada Nairobi ayaa qorsheynaya in dib loo soo celiyo maamulkii hore ay dowladda federaalka Soomaaliya ay ka saartay Beedhabo ee xarunta gobolka Bay. Ugaas Xasan Cabdi Maxamed oo ah hafayeenka Laftagareen ayaa shaaca ka qaaday in muddo bil kadib dib u doorashadii Cabdicasiis ay ka shaqeynayaan soo celinta maamulkii sharciga ahaa si loo helo nidaam iyo kala dambeyn dowladeed. Shacabka ayuu ku wargeliyay in maamulkii hore soo noqonayo ayna ujeedada tahay sida uu hadalka u dhigay. Si kastaba ha ahaatee shacabka reer Koonfur Galbeed waa inay ogaadaan in ay socdaan qorshayaal dib loo soo celinayo hogaankii sida sharciga iyo dastuurka waafaqsan lagu doortay. Ujeedadu waa in dib loo soo nooleynayo nidaamkii sharciyada ku dhisnaa loona xaqiijiyo in rabitaanka shacabka uu noqdo taldhiga maamulka, ayuu yiri Ugaas Xasan Cabdi Maxamed. Sidoo kale wuxuu intaas ku daray maalintani ma aha oo kaliya xusuus taariikheed balse sidoo kale waa fursad muhiim ah oo shacabka Koonfur Galbeed ay dib ugu xasuusanayaan qiimaha ay leedahay in ay si madax banaan u maamulaan aayahooda siyaasadeed una ilaashadaan xuquuqdooda dastuuriga ah. Ugaas Xasan Cabdi Maxamed oo ah hafayeenka Cabdicasiis Laftagareen waxa uu sidoo kale nasiib darro ku tilmaamay in dowladda federaalka Soomaaliya ay faragelin toos ah ku sameysay arrimaha Koonfur Galbeed, taasoo dowladda federaalka uu ku eedeeyay inay u adeegsatay awood ciidan iyo cadaadis siyaasadeed oo sababay burbur ku yimaada hay'adaha dastuuriga ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Waxa uu yiri nasiib darro Koonfur Galbeed ayaa waxay wajahday faragelin toos ah oo kaga timid dowladda federaalka, taasoo loo adeegsaday awood ciidan iyo cadaadis siyaasadeed isla markaana sababtay burbur ku yimid hay'adihii dastuuriga ah ee dowlad goboleedka. Tallaabooyinkaas waxay dhaabaceen madax banaanimadii maamulka iyo hanaankii sharciga ee lagu dhisay dowladnimada Koonfur Galbeed isla markaana wiiqay jiritaankii nidaamka federaalka. Intaa waxaa dheer ila siyaasadeed oo ku dhow dhaqdhaqaaqyada ka socda Nairobi ayaa sheegaya in kulamo isdaba joog ah ay yeesheen xubno hore uga tirsan maamulka Koonfur Galbeed iyo siyaasiyiin kale oo saameyn ku leh kuwaas oo ka areensanaya sidii loo mideyn lahaa taageerada gudaha iyo dibadda. Wararka ayaa sidoo kale tilmaamaya in qorshahan uu wajahayo caqabado ay ka mid yihiin kala aragti duwanaansho siyaasadeed ee gudaha, cadaadiska dowladda federaalka iyo doorka beesha caalamka ee ku aadan arrimaha dowlad goboleedyada. Dhinaca kale, falanqeeyaal siyaasadeed ayaa qaba in haddii dadaaladan ay hirgalaan ay keeni karaan isbeddel cusub oo ku yimaada siyaasadda Koonfur Galbeed, balse ay sidoo kale suurtagal tahay inay sii xoojiyaan khilaafaadka jira haddii aan la helin wadahadal iyo heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay. Waxaa la filayaa in toddobaadada soo socda ay soo baxaan faahfaahin dheeraad oo ku saabsan jihada uu qaadi doono qorshahan iyo jawaabta ay ka bixin doonaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. Ciidankii taabacsanaa madaxweynihii hore Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayaa haatan waxa ay ku sugan yihiin gobolka Gadow oo ay Soomaaliya xuduud ay kula leedahay Itoobiya, halkaas oo dhawaan gaaray taliyihii hore ciidanka asluubta Mahad Abdiraxmaan oo ku magac dheer Taliya Shub, halkaas oo ay ka socdaan awaawul iyo sidoo kale isku keen ciidamadii ka soo baxay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, sidoo kale taabacsanaa hogaankii sida xoogga halkaasi looga saaray Cabdicasiis Laftagareen. Cabdicasiis Laftagareen ayaa waxa uu ku sugan yahay magaalada Nairobi isagoona kulamo la yeelanaya odayaasha dhaqanka, xildhibaano iyo siyaasiyiin ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed, iyadoona haatan sida la sheegayo ay socdaan dadaallo lagu soo celinayo hogaankii hore halkaasi ka jiray, iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya ay ku guda jirto in halkaasi ay ka qabato doorasho qof iyo cod ah oo golaha deegaanka, taasoo muddooyinkii la soo dhaafay ay socoto qabanqaabadooda. Sidoo kale dadka la diiwaangelinayo kaararka ay qaadanayaan bisha socota ee May ayaana la filayaa in ay ka dhacdo halkaasi doorashada golaha deegaanka.